بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع أنا كنقوله إنه واحد وكسبسين هاي 10 كمية 10 هذا chapter sound وأنا applications of ultrasound application إذا ما هذا الله استعمال ultrasound اللي هو فايديستو نورمالمنت كعادية وها application إذا هو الرئي وهرتين كوغران وحال هذا echo sounders عدينو فافاينو echo sounder waxay maraakiibtu u isticmaalaan sanduuqadeedka loo yaqaan sonarka inay ku cabiraan ama ay ku soo saaraan depth-ga ama qotada biyaha taasoo u oggolaanaysa markabka inuu ogaado hadba inta uu u jiro sagxadda hoose ee badda ama bedka hoose ee bottom of the sea inta uu jiro dabcan sida halkan ka muuqata waxaa lagu magacaabayaa transducer-kaasi waxa weeyaan dabcan qaybta cod ka soo saaraysa halkani waa qaybta markabka uu ka soo saarayo marka ultrasound-kan waxaa loo dirayaa sagxadda hoose ee gunta biyaha levelkan waxay ka dhigan tahay sagxaddii hoose ee biyaha sidoo kale codkani marka uu soo noqdo waxaa qabanaya isla sanduuqa qayb ka mid oo la yiraahdo detector oo markabku leeyahay marka kani waa ultrasound pulse ama ultrasound signal markaasi incident ah tana waa reflected ultrasound oo ecosystem ayuu ku shaqeynaya marka waxaa leenahay ship's use echo sonar to measure the depth of the water beneath them si ay u cabiraan gunta biyaha ka hooseeya haddii aad doonaysid casharkan ama casharada mida dabcan waxaad nagala socon karaysaa kanaalka youtube-ka ee ah Cafe Channel waayahay tusaale haddaan usoo qaadano sidee loo cabirayaa ama markabku ku ogaanaya inta gunta biyuhu ay u jiraan waxaa macluuma oo qof kasta uu garanaya speed of sound in water oo u dhiganta 1500 oo mitir halkii second sidoo kale waxaa la garanayaa oo markabkani uu cabiraya timeka codkani uu kusoo noqonayo oo noqonaya 4 second bilmatal haddii 4 second uu codku kusoo noqonayo markaa way sahlan tahay inaynu raadino waxa la yiraahdo distance-ga u dhaxeeya markabka iyo sagxaddan hoose distance-ga u dhaxeeya caadiyan formulada waxaa lagu helayaa distance ama range-gu waxa uu la mid yahay v oo speed ah lagu dhuftay time oo loo qaybiyey 2 dabcan waa ecosystem ayuu ku shaqeynayaa qaabkaasna waxaa lagu soo saarayaa hadda inta gunta biyahaasi ay hadba dherer leeg tahay waxaa lagu magacaabaa echo sounders ama sonar ahna application ee maraakiibtu ka faa'iidaystaan isku day dabcan inaad example-ka dhammaystirto adiga oo soo saaraya hadda inta markabkaasi uu u jiro sagxadda hoose ee badda inta uu u jirsanayo application-ka labaad waxaa la yidhi waa ultrasound scanners waxaan halkaa inoo ka muuqanaya sawir ultrasound-ka dabcan goobaha caafimaadka inta badan laga isticmaalo oo aada u taqan waxaa laga yaabaa marar badan in aad aragtay hooyo uur leh oo la daraaseynayo ilmahaasi xaaladiisa caafimaad inta usbuuc u jiro oo wadna garaaciisa iyo waxyaabaa lamidkaa waayahay xitaa lagu soo saari karayo jinsi ahaan wiil iyo gabar waxa uu yahay ultrasound waxaa leenahay marka ultrasound scanners waxay isticmaalaan sound waves ay isticmaalaan to create picture of baby in mother's womb uurkooyada ilmaha ku jira si dabcan kan ayaa markan wuxuu u taagan yahay transducer isaga ayaa wuxuu sameynayaa signalka isaga ayaana dib u receive gareynaya shaashadana waa laga monitor gareynaya ama laga maamulaya kaliya ma uur ku jirto kaliya laakiin waxyaabaha dee fuuriyaaniga waa laga yaabaa kaliya dhagax marka kaliya ku xanuunaan oo kale inaad scankan isa soo saarto okay waxaa loo isticmaalaa oo kale application saddexaad waa echolocation waxay ka dhigan tahay in iyadoo la isticmaalayo echo la locate gareeyo ama positionka ay walaxay ku jirto picture-ka halkan ama diagram-ka waxaana ka muuqda
xayawaankan lagu magacaabo batska bats dabcan waxay isticmaashaa sida la sheego indho way leedahay laakiin indhaha markaasi wax kuma aragto waxay ku socotaa ku ugaarataa wadadeeda ku raadsataa codkaa ay sii daynayso marka signalkan ay sii daysay tusaale ahaan cayayaankan yarkaa markuu ku dhacay waxa uu codkii usoo noqday dib ayuu usoo noqday soo noqoshadaas ayuu ku dareemayaa shaygu intuu jiro haddii caqabad ay ka hor timaado waxyaabahaas oo dhan ayuu ku dareemayaa marka waxaa tira echolocation is a production of sound used for communication loo isticmaalayo communication ahaan okay example waxaa tusaale loo soo qaatay bats use echolocation to find their way their prey raashinkooda kale ama waxay cuni lahaayeen iyo dariiqay mari lahaayeen inta waxay ku baaraan codadka soo noqonaya oo applicationka saddexaad oo yahay application afraad waxaa la yidhi obstacle sensing halkan sida sawirkan oo ka muuqata qofkan waxa ay ka dhigan tahay inuu yahay qof visual impaired ama qof xagga aragga oo kale ka ciladaysan ama indhoolaha oo kale ushan ayaa waxa ay leedahay program ah in ay soo saarto waves waa de program electroniga program electroniga waveska ay soo saarto marka ay ku dhacaan hadda tusaale ahaan qofkan gaari buu ku socdaa gaariga taageerkiisa waa kan codku markuu gaariga ku dhaco reflection buu sameynaya ama day sharqantaasuu maqlaya ama iyada giliil sameynaysa marka codadkii lasoo celiyay waxay sameynaysaa vibration ayay sameynaysaa marka waxay this project is designed to get a visual impaired person to work and avoid the obstacles inuu caqabadaha uga fogaado inkastoo aanay ushani xiriir la lahayn godadka qofku ku dhacayo haddana ugu yaraan waxa uu kaga baaqan karayaa derbiga iyo waxyaabaha ka hor imaanaya ugu dambeyn waxaa tiraahdaa geologistayaashu marka ay sameynayaan surveyga marka la baarayo saliidda iyo waxyaabaha lamidkaa waxaa la isticmaalaa ultrasound survey geologists use a variety of technologies technologiyad badan baa loo isticmaalaa to find the best oil and gas breaking rocks including ultrasound surveys surveyga ugu horeeya la fulinayo waa ultrasonic vibration ayaa la isticmaalaya intaas ayaynu kusoo gabagabeyneynaa qeybta ku saabsan casharkan intaan cashar lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaano alla ciddii danaynaysa barnaamijkan inay ka faa'iidaysato waxay dabcan uga faa'iidaysan kartaa barta youtube-ka aan ku leenahay ee ah Kaafi channel dabcan wuxuu kaa saaciidi doonaa haddii allah ugu daleydmo in aad arday ku xornaato si aad uga faa'iido barnaamijyada iyo casharada halkan ka bixi doona sidaas u qorantay Kaafi channel waxaa raadinaysaa dabcan hoos u deg loogada dabcan Kaafi channel ay isticmaasho loogada ay isticmaalayso waxay noqonaysaa loogada u design garaysan waxa ku qoran Kaafi channel waad iska diiwaangelinaysaa haddii aad kusii dhufato dabcan waxaa kusoo bixi doona casharadii hore aanu soo gelinay ka mid noqo akhristayaasha iyo saaxiibada dhow ee ku xiran barnaamijka Kaafi channel. Asalaamu Allaahi calaykum.